بني باهيدي هوين بالله يا قبترا بني باهيدي هوين بالله يا قبترا بدم يا كمقنان أصلي بيوركين sidoo kale asri biocare macaamiisheeda waxay ogeysiinayaan in ay soo saareen kareemooyin cusub xaruntooda weyn ee magaalada Ajmaan waxaa lagu iibin doonaa si jumla ah iyagoo ganacsatada ugu baaqaya in markaasi ay ugu geyn doonaan goob waliba oo caalamka ay markaasi ay ku nool yihiin asri biocare xaruntooda weyn waxay ku taalaa magaalada Ajmaan ee wadanka isku taga Imaaraadka Carabta بلعدا دمر كان متبي كريمي يباركون كبرح لوكي مكدا كريمي يباركون كبرح لوكي مكدا وحيلو بوريغاغا إيو آدم كبقي وحقوبا مرقودا صوباري ديو روغادا سليبويور بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا داوديا البرنامج كي حيسها لها اي اودا سوغيسين حلقانو كالدي قلول شو او آسي توسوغا داوانيسان تي فيغا صومالي كيبال حرونتيسا مقالة لندن برنامج كان بآلا وحا إذن لسعودتيسا انيغو ديقا عثمان عبدي دي قلول وبرنامج كي ني حيسها لها اي حلقانو كالي اودا داون جرتين برنامج كالدي قلول شو wuxuu gaar u yahay dumarka barnaamijyo qaar oo waxa jira ay rag iyo dumarba ka qayb qaadan karaan oo si toos ah u saameynayo labada qaybood ee bulshada ka kooban tahay barnaamijkan waxaan ku soo qaadaa dhiganaa aan ku soo diyaarinaa mowduucyo muhiim ah oo aan isleenahay bulshada Soomaaliyeed waxay ka faa'iidi karaan wax badan khaasatan dumarka gabadha Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka kaga nooshahay ay ka faa'iideysan karto موضوعية runtii muhiim ah ayaan wiigagii hore soo qaadanay oo dumar badan ay aad uga faa'iideen waxayna ka daawan karaan YouTube-ka ku jira iyo Facebook-ga Deeqalul Hair and Beauty page-keena runtii barnaamijka maanta waxaan rabnaa inaan ku soo qaadano mowduuc yar oo aad iyo aad muhiim u ah oo dumarka aan isdhihi karo waxyaalaha daruuriga ah ama aad loogu baahan yahay khaasatan dumarka ay aad u isticmaalaan maanta waxaan ka hadlaynaa haduu Ilaahay Raxmaanka ogolaado waxaan ka hadli doonaa timaha iyo waliba sida loo kalar gareeyo ama kalarka tinta loo marsado waxaan insha Allah taala hordhaceeda ayaan isla fahmi doonaa in yar oo hordhac ah kadibna waxaan u gudbi doonaa barnaamijyada soo socota iyadoo wali wada faahfaahsan oo qoraal ah ama sabuuradii yareed aan ku sharxan doono insha Allah taala barnaamijkan waa barnaamijkiini runtii waxaan ku kala faa'iideysanaa waxyaalo muhiim ah marmar qaarkood waxaan ku soo kordhinaa waxyaalo ay fikrado ah oo aan ku saxeyno bulshadeena isku saxeyno ama aan ku kala qaadanayno ra'yiyo kala duwan marna waxaan ku qaadanaa casharo muhiim ah oo cilmi ah runtii maanta waxaan qaadanaynaa casharkeena uu yahay cashar muhiim ah oo cilmi ah waxaan qaadan doonaa si cilmiyan sida gabadha Soomaaliyeed ee tinteeda iyadoo guriga joogto u kalar gareyn karto sida haddaan kala qaadno kalarka inta nooc uu kala baxo iyo qaybtee adiga aad gurigaaga ama naftaada adiga aad samaysan kartaa iyo qaybta adiga totally aadan samaysan karin iyo waxyaalaha tinta damage gareeyo ama dhaawaco ama tinta halleeyo ama jijibiyo runtii timaha waa xubin kamid ah xubnaha muhiimka ah khaasatan dumar haddaan nahay anaga waxay noo tahay muhiim marka insha Allah taala waxaan isla fahmeynaa in gabadha Soomaaliyeed ayadoo gurigeeda joogta ay isticmaali karto kalarka haday noqoto kalarka casaanka ama guduud ka dhigato ama brown ka marsato ama madoweysato laakiin si cilmiyan ah tintii aysan damage ama dhibaato aysan u soo gaarin marka waa khasab inaad wax ka ogaatid waa naftaadii waxyaalaha halis ahna inaad marsanay marka maanta waxaan isla meel dhigi doonaa insha Allah si cilmiyeysan waxa aysan aadan adiga naftaada gacantaada aadan ku samaysan karin iyo waxa normalka ah ee aad gurigaaga ku samaysan karto
oo lagu ogol yahay cilmiyan ama aan ku dhibaateyneyn insha Allah taala. marka waxaan rabnaa colorka wuxuu u kala baxaa permanent color iyo permanent color iyo semi permanent waxa la dhaho. permanent colorka waxaa laga wadaa colorka joogtada ah ee aanan markaa marsato tintaada la mariyo aanan kaa dhaqmeynin, markaad tinta dhaqato shaambo ku dhaqato aanan kaa dhaqmeynin ama bixinin, waa permanent color. waxaana permanent color loogu bixiyo waxaa lagu qasaa peroxide waxa la dhaho oo chemical ah oo lagu adkeynayo tinta, lagu adkeynayo chemicalkaas inaysan hadhow fade garoobin ama aysan colorkii uusan dhaqmin. marka permanent waxaa ka dhigayo joogto waaye ilaa tintaada ay soo baxdo oo regrowgeeda intuu soo baxo tintii ay hoos u colorkii originalkeedii tintaada hadday ay tin tusaale ahaan cero ah ama timo cad ay ahaayeen oo kale, tin cadaa soo baxayso, so tintii colorka lahaydna afka hore ku haraysaa. marka tintii soo baxday originalka ahayd unbaa cad, laakiin intii kale oo dheerayd oo colorkii sideedii inta marka saasay ku baxaysaa. marka permanent color waxaa loogu bixiyey ma ka dhaqmaayo tinta ilaa regrowga tin inay soo baxdo original ama ahane ma kaa baxaayo. marka permanent colorka waa very high, macnaha aada u adag yahay chemicalkiisa. waxaa lagu qasaa peroxide, ma kaa dhaqmaayo. waxaad muxuu ahaa u samaysan kartaa, waxaad ku marsan kartaa meel salon ah ama qof professional ah kaliya ku marin karo. ma loogu talagelin xitaa iskaalbaha ama maqaarka hoose inuu kaa taabto, looguma talagelin. marka midda kale iyadana muhiimka ah waxay tahay bleachka inaanan tinta bleachka Soomaalida hadda waxaan la hadlayno waa dadka wadankii hooyo iyo meelo badan oo Afrika kamid ah joogo kale inay bleachka ayaga intay qastaan sida highlight ama inay rabaan beyond tinta ka dhiganaya ama tinta waxaan ka dhiganayaa gold ee iyada marsanaysa, ayadana waa damage kale. lama ogola inaad bleachka aad maqaarkaaga ama timahaaga aad si loogu muxuu ahaa aad sidii color caadi camal inaad u marsato looguma talagelin. waxa kale oo loogu talagelin inaad gurigaaga ku marsato waxaa kamid ah waxaa kale oo tintaada marka aad marinayso permanent colorka waa inaysan tintaada ahaanin tin daciif ah ama weak ah oo khafiif ah, inaysan ahaanin tin jermi leh oo iska celin karto waa inay ahaataa. li'annahu colorka wuxuu permanent colorka markay tinta saas tahay wuxuu bedelayaa permanentiga uu bedelayaa uu galayaa awood u leeyahay peroxide-ka iyo kiimikada lagu daray wuxuu awood u leeyahay uu bedelayaa cuticalka waxa la dhaho ama dhuuxa gudaha oo cortixiska gudaha uu bedelayaa. tintii lafteedii gudaha intuu galo ayuu awood u leeyahay inuu colorkiisa bedelo. saas darteed hadhow ma muxuu ahaa iskama colorkii kama maxaa la dhahaa ma kaa dhaqmaayo because laftii gudaha dhuuxii ayaaba bedelantayba. marka haddii tintaada ay cero ahayd oo kale oo cad ee grey hair ahayd waxay noqonaysaa brown ama black aan marisay, peroxide-kii lagu daray ayaa awood siinayo permanent colorkii inuu tintii bedelo. ayada laftigeeda waxaa muhiim kala ah tintaada markay relax leedahay ama daawo jilciso aad marisay oo kale inaada color haddana aada ka dabageyn karin, li'annahu already chemical adag oo strong ah oo loogu talagalay in muxuu ahaa oo tinta ay muxuu ahaa ay damage gaarin oo la ilaaliyo oo protein la mariyo oo muxuu ahaa la keergareeyo loogu talagalay ayaad marisay. tintii adkayd ayaa way jilicday, so iyada laftigeeda dhuuxeedii ayaa xoog lagu bedelay. marka saas darteed tintii chemical ku filan way marsan tahay, permanent color ma marin kartid, iyadaaba chemical damage qabto oo waxaa marisayba daawo jilciso ama relaxed wax loo yaqaan. saas darteed haddana ma ka dabageyn kartid daawada permanent hair colorka ah oo colorka waxay doontaa ahaata ama brown ama ha noqoto brown ama ha noqoto black ama ha noqoto red, problem ma lahan. color dambe oo permanent ah tintaada ma marin kartid haddii aad jilciso marsatay. marka waxyaalaha naloo ogol yahay wixii mamnuuca ahaa ama aan fiicnayn ama aan ku dhaawacayay waa soo sheegnay. waxyaalaha marka aan ku damage gareynaynin anaga runtii dumar haddaan nahay gabadha Soomaaliyeed hadda sanadahan dambe ma garanayo ma stresskii colaadihii cimiladii isbedeshay
waxaa nagu soo degdega tinta grey hairka ama cirada waxa loo yaqaan. Even dabcan nimanka wiilasha dhalinyarada xitaa hadda way qabaan, way leeyihiin tintooda grey hair. wiilkii oo dhalinyaro ah waxaa arkaysaa timo ciro badan. waagii horena dadka da-da markay yihiin ayaa grey hairka ama cirada lahaan jiray. marka alxamdulilah hadda waa gadaashan dambe dadkii waxaa arkaysaa iyagoo dhalinyaro ah inay tintoodii wada grey hair tahay. waa shidada adduunka iyo waayaha ayaa saas ka dhigay. runtii haddana gabdhaha annaga haddaan nahay dumarkii haddana ma jeclin in tinteena ay grey hair ahaato ama timaha ay ciro naga noqdaan. sababtoo ah haddii aan gabar taho weli lagu guursaninna way ku damage garaynaysaa dee qalbi ahaan iyo qalbigaada iyo maskaxdaada ahaan iyo muxuu ahaa ma kuu fududo macnaha inaad accept garayso timahaagii adoo weli gabar ah inay timahaaga ciro noqdaan. haddii aad qof dumar oo la qaba aad tahayna da-deedana aadan gaarin waxaa is leedahay haddii saygaagii ama odagaagi wuxuu ku malayn doonaa qof da- gaaray oo kale. annaga da-da ah loo nisbeeyaa inay tinta ay grey hair tahay ama ciro ay leedahay. marka waan ka dagaalamaynaa runtii, laakiin si aysan beri ayadana dhibaato noo gaarin, ciradana aan isaga qarino, muxuu timahana u quruxsano, kalarna u marsano guryaheena. sometimes dadan salon aanan heli karin ama muxuu ahaa waqtiga u saamaxaynin, damage-kan uu nooga yaraado. marka waxaan rabaa insha allahu tacaala iyada laftigeeda sida damage-ka waxaa gurigaaga aad ku marsan kartid oo aanan damage-ka kugu yeelaynin waxaa kamid ah semi permanent. waxa la dhaho semi permanent macnaha permanent ma ahan, way ku qoran tahay permanent iyo non permanent. meelaha macnaha shirkadaha way kala duwan yihiin. saas darteed waxaa sameyn kartaa midda non permanentiga ah waxaa u marsan kartaa horta gurigaaga ku marsan kartaa marka hore, oo ma u baahna in peroxide iyo wax lagu qaso oo chemical ah, way iska diyaarsan tahay. midda labaad waxay ku dhaqmaysaa 4 ilaa 8 weeks oo shampoo ah ku dhaqday sida adi u dhaqato. 4 ilaa 8 shampoo markaa ku dhaqatid tintii kalarkii aad marsatay way ka dhaqmaysaa. that means waxaa waa haddana 8 weeks kadib haddana ama 8 shampoo kadib haddana waa marsan kartaa. so malahan wax peroxide ah iyo wax kiimika ah oo tinti ka damage garaynayo malahan, way ka dhaqmaysaa haddana gurigaaga ku marsan kartaa. ama brown ha ahaato ama black ha ahaato ama red ha ahaato, kalarka adiga aad jeceshahay markaas. waxaa kaloo jiro ayada laftigeeda mid peroxide-ka mid semi permanentiga kasii liidato oo kasii yar oo ayada laftigeeda aanan waxba kaa dhibaynin oo xitaa markaa relaxta marsato kadib aad ka dul marsan karto. waxaa dhici karta inaad caawa aroos u socoto ama meel u socoto ama aad dhoofayso ama aadan haleelaynin inaad laba xilli kala sugto oo kale aadan haleelaynin inaad jilcisana marsato kadib aad sugto muddo kadibna aad relax kalarkii marsato. marka saas darteed waa inaad marsataa marka aad relaxtaad marsanaysaa, waa iska dhaqaysaa kadib waxaa marsanaysaa haddana midii kiimikada ku yarayd ee kalarka ahayd. so markaas isla hal mar ayaa waxaa kuu suurtagelayso timihina inaad relax marsatid oo ku qurux badnaadaan iyo in kalarkii aad rabtay oo grey hairkii ama ciradii ama tintii rafka ahaydna kalar yaro qurxan ay ku noqoto. laakiin ogow wiigag yar kadib markaa timaha dhaqdidba way kaa daadanayaan oo saliidii kalarkii wuu kaa dhaqmayaa. saas uu ogow. marka kalarkaas dhaqmaya macnaheeda ma ahan inuu kuu nagaanayo, sababtoo ah ma aha permanent. wayna kuu fiican tahay kalarkaas dhaqmaayo, beri haddana waa marsan kartaa. markuu kaa dhamaado haddana waa marsan kartaa. ma aha wax chemical badan ee ku jirto oo tinta kaa damage garaynayo ma aha. marka waxaan rabaa inaan wadaagno waa su-aalaha dadka ay isoo weydiiyaan inta ugu badan ayaa markiiba waxaa ogaadaa bulshada meesha ay baahida u qabto. ma ahan inaan mawduuc aniga aan iskaga soo fakaro oo iraahdo mawduucaasaan maanta sheeko ahaan aan dadkii la hortagaya ma aha. su-aalaha masaajiyada badan iyo waxyaalaha facebooka privateka lagu soo weydiiyo intaasoo dhan ayaan waxaan fiiriyaa meesha ay dadka dumarka qaasatan u badan yihiin ayaan fiiriyaa. kadib ayaan topic ama mawduuc muhiim ah oo intaasoo milyan oo Soomaali ah qaasatan dumar ah ay ka faa'iideysan karaan ayaan usoo bandhigaa. raalli noqdo maanta waa yara hirgabsanahay, laakiin dad badan oo u ballan qaaday inaan barnaamijka maanta aan mawduucaas aan wax oga taataabto ballantii ayaan oofinayay. waana ku mahadsantihiin sida aad barnaamijka ugu xiran tihiin, sida feedbackyada noo soo siisaan,
sida aad noogula socotaan. barnaamijka maanta waxaa weliba qeyb muhiim ah ka ah oo runtii ayada laftigeeda in badan aad sugayseen aan rabnaa inaan maanta idinla sheer gareeyo runtii branjiga Asli Pure Care oo laga furay Norway oo aan rabo inaan si toos ah muxuu ahaa maamulaha companyga Asli Pure Care branjigiisa Norway oo halkaas hadda kadib ay reer Norway ka heli karaan insha Allah tacaala inaan si toos ah qadka maanta aan ula sheer gareyno. waxaa la yiraahdaa Nasra waa muxuu ahaa qof professional ah ma sha Allah oo markii hore customer ee ahayd companyga muddo ku xirnayd nala shaqeyn jirtay runtii wax badanna companyga ka faa'iiday runtii markii dambana nasiibka u yeelatay inay qaadato branch ahaan Norway iyo reer Finland inta ugu dhow. waa ogtihiin branchiga wuxuu ka furan yahay companyga Asli Pure Care Sweden Stockholm. haddana insha Allah tacaala waxaan rabaa inaan qadka si toos ah Nasra maanta ee warbixin buuxda naga siiso communityga Soomaalida ku xiran reer Norway iyo waliba branchigan cusub nasiibka ay u yeelatay Nasra. Salaamu calaykum Nasra, ma maqlaysaa? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أباي واكو سلامي waxaa toos ugu jirtaa barnaamijka Deeqa Luul Show ee TV-ga Somali Cable. runtii maanta nasiib ayaa u yeelatay inaan nagala qayb qaadato adigoo waliba nasiib u yeelatay companyga Asli Pure Care branchigiisa Norway oo runtii dad badan aad u sugayeen aad ku xiiseynayaan adigana aad tahay qof active ah maamo ma sha Allah active ah oo aad u taqaan bulshada ka dhex muuqato. maxaa dadweynaha la wadaagi lahayd maanta? ما شاء الله وانكده ولا شيء أدب ما أنت هذه برنامج كاذبة أدب نقول ومفتوحنا هاي لما متصل مريض وسلام يا تيفي الصومالي كيبل ديقوا ديقلوا لنا سلام خاص أدب ولكن بقول سلام يا حبيبتي وندو هاي ما شاء الله ما شاء الله. Nasra haddaan u soo laabano salaantii waa ka guddoonay dhammaan shaqaalaha iyo maamulka TV-ga Somali Cable way ku dhageysanayaan ku maqlayaan dadweynahana runtii aad ay ku dhageysanayaan meel kasta ay joogaan khaasatan dumarka oo very interesting ay aad u xiiseynayaan. waxaad qayb ka tahay maamulayaasha companyga Asli Pure Care branchigiisa Norway oo hadda dhawaan aad halkaas ka furtay. maxaad reer Norway aad kula talin lahayd sidee adiga branchigaas aad qaadatay shaqadiisa howlishiisa sidee u aragtaa? ما شاء الله دمان غير نوعي وكسر دوينيا محيطين كمبني جن أدب وكسر دوينيا أنا جو كتمركز أول بكقيبها أو يعني دكت استعمالي أما وترى صو استعمالي أنت بدل مدة 4 سنة كفرنا وأدب شيء استعمالي ما شاء الله أو يعني أنا هادتك وحوي وترى يعني كمبني جن أو يعني ما شاء الله أن كأها حدنا وحكوسة دوينية ولا لبيد الصوماليات قبلها الصوماليات ودن كنوروي كنول وهاي وحلا يكسر دوينة تفرد وعوه ليسين ولا لهي فريدها عوه ليسين ما شاء الله. إلا هذا كاستمرك كل صو حريري iyo sida aad wada macaamisheen iyo feedback ay ku siiyeen wax ma nooga sheegi kartaa Nasra? ما شاء الله أباي سفي عن إلى سحريرين ما شاء الله كأن حيث كسمر كسفي عن يعني هبلها أن كوانا قام كوانا أقول يعني ما شاء الله هذا بس هروابي جسي دماتي هذا نضرب في كلام هذا إيه مقبو ما شاء الله سفي عن أيام قبلها وحنقولي أن حرير هو السميني وأي أد هو المفسودين وإذا ما شاء الله هذا ولا شيء نوفر ويسي حيث أن هوشي أو نور يدري ولا جهنا يأدي أدم حيث أن أيوة مفسودين حبيبتي. ما شاء الله أذيقنا آدي وما هتسنتهاي جهدي بدن أجلسو iyada laftigeeda sharaxaada dadka soo dhaweynta businesska ma sahlana inuu qofka uu business uu socodsiiyo ama hawsha uu businesska galo waxay u baahan tahay waji badan in aad dadka soo dhaweyso dulqaad badan marka ma sha Allah ma noo sheegi kartaa Nasro waxyaalaha hadda sida foundationka oo kale Norway maadaama ay tahay meel aad u qabow oo dumarkana qaarkood iskuul aadaan qaarkood shaqo aadaan sida foundationka oo kale sida adigaba aa uga heshay hadda ka hor sida ay muxuu ahaa uga heleen foundationka iyo creamka isku dhex jira markay isticmaalaan? ما شاء الله باي سفي عنه وجه له سفي عنه وافعي
asxaabteeda yani magaalada aan deganaho kale igula noolata qaar inta majority-gooda isticmaaleen aad uga wada mafsuudeen foundationkana aad iyo aad qayb weyn uu ka qaatay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ku nool yihiin waxaan leeyahay kambanigan ha moogaanina ana ka maqnaanina aad ayuu wax iga taraya dhammaan kuwa ku nool wadanka aan joogay Norway oo uu aad ugu fiican yahay marka ay banaanka aadayaan ama shaqada ama iskuulka ama yani qof guri fadhiya kolay Yurub ma jiro oo aad bisha waqtahay صح ومahadsan tahay Nasro ma ii sheegi kartaa adaan fursad ku siiyo waxyaalaha kale ee hadda aad company-ga sida hadda ciidii waa soo socotaa samarkii aad soo socdo waxyaalaha company-ga hadda uu ka faa'iido waxa kamid ah oo kale aan soo sameynay dharkoo kale waxaan ognahay inaad dharkii dalabaad badan aad samaysatay sida dresska cambuurada toobabka iyo xijaabkiisa isle ayada laftigeeda sida ay customer-ku u arkeen ما شاء الله أبغى ها في عنا كإذا كذا ورم ترى لما قبلها الصومالية ضدن مركز تيجون عن برا وقرحون وقبلها الصومالية قرح نوعها استوى نوعها يعني أسطورة أنا مع خمارة دولية أد وقرح بدن هي عرفتين إن هذا كان بيني وصوص صار وما شاء الله أد لو غور مقصودي يدوك هذا يقدر الشقة دي على الصودا إلا ما يرير على الصودا إلا هبلا يريسين إيج كأ oo khaas ay iska leeyihiin maamooyinka dumarka waaweyn kuwa dhexe bal aad u qurux badan ilmaha yar yar isaguna ma sha Allah kuwaasna waa soo socdaan samar iyo iid waa kala way isku xigaan iyaga laftigooda waqti dheer ma u kala dhaxayso kuwan haddana ma sha Allah cambuuro qabowgana kaa celinayo oo aad maradooduna u fiican tahay khamaaradoodii oo aad looga wada mafsuuday ma sha Allah intii iga qaadatay ilaa hadda magaalooyin ii dhow kuwa iga fog gabdhaha iga soo wacay maantadan ugu dambeysay gabdhaha iyo xataa iga imaadeen magaalooyin xoogaa ay jiro dhahayahay saakooyinkan goormaa la soo celinaya misan la hadday maqan yihiin haddana intan taalana sii qaata ما شاء الله نصر ما شاء الله aad aadan kuugu mahad celinaya adiga laftigaada company-gan waa company gabar kasto Soomaaliyeed qayb ku leh waa company weyn oo gabdhaha Soomaaliyeed wax u taraayo u sameeyo ma ahan business kaliya wuxuu bixiyaa talooyin badan wuxuu dadka xitaa gabdho badan businesska ka caawiyaa Nasr ugu dambeyntii company-gan waxaan fursad ku siinaynaa TV-ga Somali Cable Deqalul Show adigoo waliba qayb ka ah company-ga Asli Pure Care magacaaga iyo muxuu ahaa magaalada hadda ay ku taala xaruntaada oo lagala soo xiriiri karo dabcan Facebook ayaa insha Allah gelin doonaa telefoonada oo Norway Nasra laga helayo branch-ga order ah ku sameeysan karto laakiin magaalada aad degan tahay iyo magacaaga iyo wax yaro feedback oo hadda nagu barnaamijka ku soo gabagabeynayno okay abay waa ha telephone number-kayga waa ku soo qori doontaa insha Allah shaashada ama qaybta Facebook aad arkateen uu company uu ku leeyahay insha Allah anigu waxaan joogaa Norway wadanka Norway baan joogaa qoyga Norway baan joogaa insha Allah meel kasta ay Norway qofka kareemada gabdhaha u baahan ay ka joogaan sida ugu fudud ugu dhaqsiyo badan ay u helayaan إن شاء الله تعالى نصر آدي آدم كوجو مهد علينا يا سيد قال أنا باي هذيك أنا كوجو مهد علينا يا قبلها صوماليتنا وحلا وكمبني جيني وكمبني جو وأصلي وكمبني جيني قال لها كسر قيد قال الله هاي أنت كم يعني أنت كم قلنا كسر بير الله أنت هربت ماشي نواب وبيجين باير مركز الديار بيجين أبيك إيو برنامج كإيو كمبني قاعد نوصل مثلا أدبن كاجم مهد علينا يا قيد في Somali Cable لأدم هسيهين أدبنكم سلام يا ولا شيء سلام عليك ولا شيء آدي آدم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي بارك الله فيك بارك الله فيك ولا المعان إن تاسوحي أهيد النصر أو نوروي برانش أصل بيور كير قيب برانش كفرتي ودك النوروي ودن آد وقبو أنا إن ضدك ودمada kale wadamada Yurub ugu qabo ku jiro wax badan ka faa'iiday dumar badan oo Soomaaliyeedna anaga laftigeena hawshii naga qaaday waa u mahad celinayaan Nasra because Norway waa meelaha aad customer-ka aan u leenahay oo alaabta loo diro sababtaas ka liftay in marka branch u dhow looga furo reer Sweden sidaas la eg Stockholm ay ka helaan wadamada kalena insha Allah taala iyaga laftigoodana customer aan u heli doono macaamilo iyo ganacsi muxuu ahaa dad ganacsata ah oo ayagana saas customer-ka ugu soo dhaweeyo waxaan idin leeyahay barnaamijkiini wax badan aan ku kala faa'iideysanaa waxaan kaloo rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto branch-ga Asli Pure Care
wuxuu ku leeyahay magaalooyinka wadamada ay kamid tahay Kenya oo kale Nairobi, Isli, Soomaaliya oo kale uu ku yaalo magaalada Muqdisho, Hargeysa uu ku yaalo muxuu ahaa suuqa weyn ee Waaheen Cimaaratul Baraka. iyo waxaan rabaa in la sameeyay qiimo dhimis qaybta timaha ah oo aad iyo aad ay dumarka ayaga iga soo codsadeen. waxaan sameeynay qiimo dhimis customerka ama macaamiisha ku xiran Nairobi Kenya oo dhan qaasatan Nairobi meesha ka furan yahay Isli 12 Street Medina Mall xarunta shop number 7 iyo xarunta aan ku leenahay magaalada Muqdisho iyo xarunta aan ku leenahay magaalada Hargeysa. waxaan leenahay qiimo dhimis qaybta timaha ah oo soconaysa ilaa iyo ciida ay soconaysa insha Allah taala oo kambaniga uu u gartay macaamiishiisa maadaama ay tahay maalmo xilli aad iyo aad ay dadka hadda ugu baahan yihiin ama isticmaalkeeda ay aad u badan yihiin. marka waxaan idin leeyahay insha Allah taala kambaniga muxuu ahaa waxaan rabaa inaan barnaamijka markaan aan soo gabagabeeyo insha Allah taala waxaan rabaa barnaamijka insha Allah taala inaan soo gabagabeeyo. waxaan dib aan faahfaahin dheeraad ah qaybta timaha oo fasiix ah oo qoraal ah hordhac waxaa idinkugu sheegaya inaan wax ka fahamtaan kadib hadhow si qoraal ahaan aan rabaa inaan sabuuradii soo qaadano aan si waadix ah cilmiyan aan isu fahamsiino insha Allah taala. gabar kasta oo Soomaaliyeed waxaan leeyahay barnaamijka Deeqa Luul Show ku xirnoow waxaad toos uga daawan kartaa ayada laftigeeda barta Facebook ee Somali Cable ciduu seegana YouTube-ka Deeqa Luul Show hadaa ku qorto Facebook Deeqa Luul Hair and Beauty ayada laftirkeeda waa lagu soo share gareeyaa intaas oo dhan ka daawan kartaan dhammaan anagoo isku duuban farsamayaqaanada Maxamed Yare iyo muxuu ahaa dhammaan shaqaalaha TV-ga Somali Cable injineerada oo u mahad celinaya farsamada quruxda badan ee noo suurtageliyeen anagoo isku duuban waxaan idin kaga tageynaa والله معنا ومعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.